Sorry walaal. noloshiisa ka hadhay ama uu nool yahay ama ha dhinteeba waxa weeye inaan saamaxaynin. Sababta markaa keentay inuu isagu block saaro maxay ahayd? walaal wallahi wax sabab aan ku dhahdo waxaas maanta xamsi dhacay oo aan markaa noo dhexeeyey ma jirin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal, waxaan ahay Xamse Xeero. Halkan iga daawanaysaana waa Xeero TV. Waxaan wadaa barnaamijkeennii qisooyinka Xeero TV. Waxaana marti inoogu ah Nimco. Nimco maanta waxay inooga warrami doontaa qiso jacayl oo waqtiyada ka mid ah dhex martay iyada iyo wiil ay wada socdeen. Waxaan dhihi kala baxaya adinka iyo Nimco. Garabkayga midig waxaa fadhida Nimco. Nimco soo dhaweynaya marka hore beedkayga Xeero TV. waan dhowahay walaal aad iyo aad baan dhowahay adigana aad baan ku salaamay. waad mahadsantahay walaal. Nimco waxaad ii sheegtay walaal inaad hayso qiso jacayl oo waqtiyada ka mid ah adiga noloshaada ku soo martay. bal qisadaas waxaan rabaa aniga iyo bahda Xeero TV inaad nala wadaagto. haa walaal qisadu waxay ku dhacday 2024kii sax markii taariikhda ahayd bishii 10aad ayuunba waxay ahayd taariikh ay ila soo gudboonaatay. waxaan isbaranay wiil 2024kii markaas waxa weeye wiilka wada sheekaysan jiray in muddo wada soconay in muddo walaal wiilka wada sheekaysan jirno waa wada soconay. marka maxay ahayd walaal adigu saan wada soconay si wanaagsan oo qurux badan baa wada soconay ama waxa weeye laba qof oo isjeclay wada socdaan. maalin oo maalmaha ka mid ah waxaa dhacday inuu wiilkii block saaro ama lambarkiiga qaban waayo. walaal maxaa dhacay markaan ku lambarkii aan wacayna uu igu dhigay iguna dhageystay lambaradii oo dhan block iyo waxa weeye whatsappkii hadday tahay facebook hadday tahay inuu block wada saaro. Nimco sababta markaa keentay inuu isagu block saaro maxay ahayd? walaal wallahi wax sabab aan ku dhahdo waxaas maanta xamsi dhacay oo aan markaa noo dhexeeyey ma jirin. habeenkii oo fiidkii oo dhan wada hadlanay markii dambe igu yidhi hadhow baan kula soo hadlaya walaal haye un baan dhaho saa u sugayey adigu markii dambe waan iska seexday. subaxiina inuu soo garaacin anigii baa garaacay siidun baa lambarkii lagala dhacay. waxaan istiloma lambarkii saaxiibadiisa haysta. markii adigu aan ogaaday inaan cid kale haysto isaga uun haysto lambara adigu dhowr ah oo lahaa ka garaacay. labadii wixiiba siiga lala dhacay. whatsappkiina block marka dambe iskaga ka xidhay siduu maxay tole u dhacay fariimaha intuu eego ugu dhaafayay aan waxba iiga soo jawaabaynin. marka facebook haddana dib ugala hadlay facebookii qoraal intuu iga soo qoray waan kaa tegey ayuu maxay tole block isagiina igu xidhay. halkaasay maxay tahay markaa sheekadii ka bilaabantay. aniguna aad iyo aad baan wallahi walaal u murugooday. waqti dee waxa weeye naftayda dhibaato badanna waa lasoo daristay oo waxa weeye adigu muddo ilaa bil oo kale ah aad baan u dhibtoonayay. waxa weeye markasta aan cidlo uga murugoonay cidlo ooyey. xataa cuntadii waan cuni waayey wax kasta oo ila soo darsay dhibaato taana waxaan u mariyey wiilka aan jeclaa. dee waxa weye wax kale iga maqan ma jirin jacaylkaasun baa waxa weye dhibtaa ii geysanayay. waay markaad adigu Nimco xaaladda qiimaysay maadaama aanay jirin wax sababo adiga xaggaaga ka timi oo la odhan karo maanta jacaylkiina ayay ku noqotay caqabad ma jirta isaga xaggiisa sida inuu qof kale kula waday oo kale mukaan raacay mise adiga xilkaaga soo gudbiyay way odhan kartaa maanta? walaal qof kale anigu markaa dee waxaan lahaa daacadun buu ku yahay oo siduu isagu bay tusayay ama aan ka dareemayay oo dee waxa weeyaan dee wada hadli jiray daacadun buu i muujinayay. aniguna wallaahi runtii daacadun baan iska noqon markaa arkay dee siduu waxa weeye wanaagsan oo ila hadlayo quruxda badan leh. mar quraba kama filanin inuu xumaanta niso qofku bilaadanka dadku way kala hadhaan laakiin dee sababo iyo waxa weeye waxbaa soo darso ay isku kala hadhaan laakiin ismana hal mar xiriirka kugu soo jaraya isagoo sidaa wanaagsan iyo waxa weeye wanaaggaas ku barateen iyo jacaylka aad isu haysaan. markaa waxaan dareemay markii dambe dee cidlo fara badan walaaliyo cidhiidh fara badan naftaydii baa xataa waxa weeye aan dee dhibsaday. markaas walaal qisadu waa taas. dee walaal walaal markaas waxa weeye markay dee sidaasi dhacday wuxuunaan ogaaday inuu qof kale igu waday oo waxa weeye inan kale igu hoos waday.
markii dambena iyadii nolol la wadaagay oo u guursaday ayaa dhacday. marka aniguna wallaahi maalintii aan arkay meherkiisa aad iyo aad baan uga naxay, iyadoo ay weli waqti badan markaa kasoo wareegto bilo 3 bilood ay kasoo wareegeen, haddana wallaahi xaalkayga wuu isbedelay oo sawiradiisii wixii aan arkay. marka walaal waxaan hataa gaaray heer inaan markii dambe ragga aan aamini waayo, waxa weeye kii run ii sheegay inaan been u qaatay inuu waxa weeye uu igu wado, oo aan sas ka qaaday xitaa halkaa waxa weeye aaminaadii. waayo nimaayo markaa aad ogaatay in uu mehersaday ee sawiradiisa aad aragtay intee baa kasoo wareegtay markaa intaa kala tegin waqtigii uu markuu saa kaaga tegay uu mehersaday mise waqti dambe kadib? adigu waxaa kasoo wareegtay 3 bilood keliyun baa kasoo wareegay intii aanu kala hadhnay, oo waxa weeye dee awalba wuu wadala qof markiiba hawsha waxa weeye iskama gala, oo qof wada ay wada socdeen oo xidhiidh uma wada lahayn baan markii dambe fahmay. waayo nimcoy maadaama emotionkaagu kacsan yahay walaal waan kusoo koobiyey bal ma hal iyo laba maxaad maanta hadduu barnaamijkan laga yaabo inuu daawan doono barnaamijkan maxaad fariin halkan uga diraysaa? waxaa walaal horta halkan uga dirayaa fariin anigu inta noloshiisa ka hadhay ama uu nool yahay ama ha dhinteeba waxa weeye inaan saamaxaynin dhibaatada kuu geystay. dhibaatada dee waxa weeye ii geystay qalbigaygii dhaawacay, waxa weeye anigoo jecelo sidaa u daba socda uu dee hal mar uu qiyaamay. waayo ma la odhan karaa adigu xataa al'aan weli kamaad reebin qalbigaaga qofkaas? qalbigaygu waxa weeye iminka wallaahi xaalad xun baa ila soo deristay, oo waxa weeye dee dhibaatada jacaylka wuu iska waayay badayo qofkii dee wax jecelun baa garan kara jacaylka. markaas walaal iminka waxba iima qabanayso jacaylkiisa, haddaan jeclay haddaan jeclay wax alla wixii qabanaysaa ma jirto horta. marka waxaan ku leeyahay inta noloshaada ka hadhay ama dhimo ama noolo kuma cafiyayo. waayo daawadayaal saas waxay ahayd nimco oo inooga warramtay qisadaas xanuunka badan ee la soo daristay. halkan waxaan kusoo gudbiyaa qisooyin jacayl iyo barnaamijyo kale aad u xiiso badan. haddii adigu aad hayso qiso jacayl ama qiso kale nooc walba ha ahaatee waad noo iman kartaa si aanu kugu baahino dadkana aad ula wadaagto. sidoo kale waxaan kaa codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaad nagu soo biirto si aad ula socoto barnaamijyada ka baxa Aira TV. aad baad u mahadsantahay.